ee la soo qabtay ayay haddana xoolo u ururiyeen waxay idhaahdeen la soo daayo. ilaahay baa qisadaa ka warramaya wuxuu leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd. waa kitaabka badhna miyaa rumaynaysaan badhna waad daydaysaan. oo kitaabkii badhka rumaynaya dee markii hore waxaa la yidhi naftiinana ha dilina guryahana ha iska saarina waa laga mamnuucay. labadiiba way sameeyeen, waxna way dileen waana bixiyeen. laakiin maxaabiista hala furtana waxay leeyihin diintay ka mid tahay, ta kalena kama mid ah. waxaan idiin sheegayaa khuraasaan rag isku haystaa kuwa fadhiya iyo kuwa u soo socda. runta waxay tahay midina adiga dantaada ma wado. askariga wax dilaya uu qadday aakhirana isaga la weydiinaya qofku dilay soo diray inay dembigiisuu leeyahay. waa isku mid halkaas soo orday inaad xabad ku dhufatay iyo midaa ismaagtay inaad xabad ku dhufta. kan qaatil baa u taqaaniin qof halkaa iska maraya xabadda ku dhuftay, ka halkaa maraya ka ku dhuftayna waa qaatil. waa isku mid, waa dil dhiig bini aadam oo la shubayo. kan u dhimanaya waxaanu garanayn in loo dilayaana waa doqon kale, waxaanu garanayn inuu dhimanaya. ka wax dilaya iyo ka la dilaya midna kursiga ma fuulayo, inaba xeli maayo. ka wax dilayaana wuxuu dilaya garan maayo, ka la dilayaana wax loo dilaya garan maayo. kuwa isdilaya iyaga toobadooda waxa weeyaan oo ay yaqaaniin hadhow bay heshiinayaan. arkii waa laga heshiiyaa laleeyahy, waa laga heshiiyey toobad ma noqoto. siyaasadii baa lagu heshiiyo waa kaasoo dabeetana maanta laysa saaro waa la gartay oo ma toobad bay u noqonaysaa. adiga ma toobad bay kuu tahay markaad dhimatay.